ay tahay sanad guradeedii sagaalaad waxaynu abaalkooda ugu gudi karaynaa dhowr qof oo horena halkan ka sheegeen inaynu dhageysanno oo runtii aynu dhageysanno waxa halkan laga leeyahay waxaan doonayaa halkan haddii caawo dhan la isdhaahdo ka sheekeeya lagama sheekayn karo laakiin inaan ku soo koobo uun 5 qodob halkan waxa weeyaan team nooleeyay dhaqanka dadkeenu way adag tahay marka dhaqan la soo hadal qaado waxyaabo kale niyadooda ku soo dhacay laakiin halkan dhaqankii bay nooleeyeen ma aha teamkii diya dhaqanka ciyaaro kaliya laakiin waxa weeyaan akademiyad soo saarta jiilal kala duwan taasoo kaliya maaha ee halkan waxay tagaan oo aan ogahay oo caawa aan cidina halkan ka sheegin inay iskuulada qaar caruurta dhalinyarada ah ee dhigata ay tababareen waxaan doonayaa inaan iyadana mid ka idhaahdo halkan iyo sidii ay ugu soo caanamaashay muddada 9 sano ah qoriisu dhiibka iyo siday isugu soo wareejinayeen xilka samatar waxa weeyaan gudoomiyihii labaad laakiin sidoo kale wuxuu noqday agaasimihii shanaad ee halkan academy waxaan doonayaa inaan iyadana mid ka idhaahdo halkan iyo iska warhaynta ay iska warhayaan iyaga dhexdooda oo runtii marka aad dibadda ka taagan tahay dadku ma dareemaan laakiin markay ku dhex jiraan waayo marka xasan halkan ka lahaa agaasimaha xarunta dhaqanka anigu ma garanayo tiimka quruxda badan ee xarunta dhaqanka ee iga xiga midigta iyo halkan academy inay kala duwan yihiin aniga mid bay yihiin marka waxaan doonayaa iska walhaynta halkar iyaga dhexdoodana inaan midhaa ka idhaahdo waxaan doonayaa samatar laftarkiisa iyo hogaamintiisana inaan mid ka idhaahdo samatar wuxuu hayaa guddoomiyenimada halkan academy muddo 4 sano ah 4 sano in bulsho la maamulo dhalinyar la maamulo dad la maamulo wax fudud maaha caqabado badan baa jiray halkan mar bay ahayd inay xarunta dhaqanka ee Hargeysa ku qaataan waqtigooda maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay ku jiraan hooy ay iyagu leeyihiin taa laakiin waxay ku timi hogaaminta samatar oo kaliya maaha ee waxa weeyaan iyaga dhexdooda ixtiraamka yaala iyo isu tanaasulka haddii aan la isu tanaasulayn hogaamiye ma noqdo urur ma noqdo jirayaan waxaan doonayaa ugu dambayn midda ugu weyn ee halkan ay ilaa iyo maanta halkaa ku soo gaadhay waxa weeyaan iyaga iyo guddoomiyahooda oo ilaashaday waxa ka dhaxeeya ee dhex yaalla bulsho markay ilaashato waxa iyaga dhex yaalla waxa weeyaan muddo intaa ka fara badan maanta halkan jirtay ayay jiraysaa marka waxaan doonayaa inaan ku hambaliyeeyo halkan tiimka halkan iyo samatar oo hoggaan u ah dhabar adayga ay muujiyeen caqabadaha badan ee ka hor yimi waxaan leeyahay hambaliyo